Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta badan, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qisada sheekadii jacayl ee la magac baxday Rajadii Rumowday. Qisada sheekada oo yar dheer awgeed kuma soo koobi karna hal mowduuc, sidaa daraaddeed waxaynu ka dhigi doonaa dhowr mowduuc oo taxane ah. Qisada sheekaduna waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Axmed waxa uu ku dhashay kuna barbaaray magaalada Hargeysa. Axmed waxa uu ka soo jeeday qoys sabool ah oo aan dhaqaale ku filan haysan. Taasina waxay sababtay inuu sii wadan kari waayo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed. Axmed waxaa ka yaraa 2 wiil iyo 3 hablood oo dhigan jiray dugsiga. Awdaahir waa Axmed aabihii, waana isha dhaqaale ee qoysku lahaa. Waxaana uu ka shaqayn jiray sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa. Awdaahir waxa uu ahaa dilaal. Shamis oo ahayd hooyada qoyskuna waxay ku koobnayd hawsha guriga. Marar badan ayuu Axmed isku dayay in uu shaqo ka helo shirkadaha iyo goobaha ganacsi ee magaalada Hargeysa, laakiin umay suuro gelin in la aqbalo arjiyadiisii. Axmed waxa uu ku hanweynaa in uu maalin u nasin doono aabihii oo da' iyo xanuun isugu darsamay. Ahaana bukaan socod, Axmed waxa uu si joogto ah uga fikiri jiray arrimaha iyo xaaladda qoyskooda oo aad u liidatay, kana dhigtay mid waqtiga intiisa badan kelinimo ku qaata. Inkastoo uu galabtii waqti kooban la soo qaadan jiray asxaabtiisa, waxayna saaxiibo dhow ahaayeen. Suhayb oo xaaladiisa si dhow ula socon jiray, kana caawin jiray duruufaha nolosha inta karaankiisa ah. Waxa ay xaaladdu ku sii xumaatay Axmed markii aabihii Awdaahir awoodi waayay in uu si joogto ah u shaqo tago xanuunkii hayay awgii oo ahaa lafo garaac. Inkasta oo aanu dhakhtar u tagin, laakiin waxa uu qaadan jiray kiniin loogu yeedho xanuun bi'iye. Waxaa dhacday intaas kadib in dugsigii laga soo eriyay carruurtii ay walaalaha ahaayeen Axmed markii ay awoodi waayeen in ay bixiyaan lacagtii iskuulka. Sidoo kale waxa adkaatay in 3dii waqti dabka loo shidi waayo, carruurtiina waxa ay noqdeen qaar ay ka muuqato nafaqo darro oo caato ah. Hooyo Shamis oo jeclayd in ay shaqayso waxa u diiday Awdaahir oo aaminsanaa in hawsha gurigu aanay ka maarmayn. Suhayb ayaa saaxiibkii Axmed si kedis ah ugu soo bandhigay in ay tahriibaan, dhaqaalahana uu ka caawin doono, maadaama uu qoys lacag leh ka soo jeeday. Waxaana uu u sheegay inuu qorsheeyay kharashaadkii ku bixi lahaa, kana go'an tahay in uu tahriibo. Waxa kale uu ku guubaabiyey in uu tahriibku yahay waddada qura ee uu qoyskooda ku samata bixin karo. Axmed ma soo dhoweyn fikradda saaxiibkii, maadaama oo aanay niyadiisa ku jirin in uu tahriibo, laakiin waxa uu u sheegay in uu ka soo fikiri doono muddana la siiyo. Axmed markan go'aan qaadashadu way ku adag tahay, waayo Suhayb waxa uu ahaa qofka keliya ee uu kala tashan jiray arrimaha ku soo kordha, laakiin markan waa ku keligii. Axmed waxa uu bilaabay in uu maskaxdiisa si aad ah uga shaqaysiiyo si uu xal uga gaadho jawaabta uu ka sugayo saaxiibkii. Waxa uu cagta saaray waddada tagta gurigooda, isagoo weli la shawraya naftiisa, go'aanna weli aan gaadhin. Si ay ka baahsan tahay ayuu waddada bartankeeda ku arkay telefoon yaalla, mana jirin qofka ag dhowaa oo waddada marayay. Inkasta oo telefoonku ahaa mid cusub, Axmed waxa uu garwaaqsaday in uu qofka lumay. Si deggan ayuu dhulka uga qaaday. Axmed hore uma isticmaali jirin telefoonnada casriga ah, waxaana uu go'aansaday inuu dib ugu laabto saaxiibkii Suhayb si uu uga caawiyo helitaanka qofkii lahaa telefoonka. Nasiib wanaag, si intii uu jidka ku sii jiray ayaa la soo wacay telefoonkii. Cabbaar markii uu fiirinayay numbarka soo wacay ayaa uu qabtay, waxaana uu maqlay cod dumar oo leh hallow.
waxaana uu ugu jawaabay hallow. Salaan kadib, waxa ay u sheegtay in ay leedahay telefoonka oo uu ka lumay, haddii uu u soo celiyana ay abaal weyn u hayn doonto. Waxa ay sidoo kale u sheegtay in ay ugu jiraan nambaro muhiim ah. Axmed waxa uu ugu laab qaboojiyey in ay heli doonto telefoonkeeda ayna soo doonato. Isla markiiba waxay weydiisay meesha uu joogo, waxaana uu u sheegay isgoys caan ka ahaa magaalada Hargeysa, isaga oo ku guubaabiyey in ay soo dhaqsato. Nasiib darro, waa ay ka soo yara daahday. Axmedna wuu yara raagsaday, mana uu awoodin inuu ku celiyo nambarkii soo wacay, waayo telefoonka waxaa lagu furi karayay suulka qofka leh oo keliya. Axmed waxa uu bilaabay inuu dhinacyada ama jihooyinka ka eego qof dumar ah oo uu u aqoonsan karo in ay wax ka maqan yihiin. Cabbaar isaga oo hawsha ku fogan ayaa goobtii u taagnaa waxaa soo garab istaagay gaari nooca raaxada ah, aadna ugu soo dhowaaday halkii uu taagnaa. Axmed gadaal ayaa uu uga baxay gaadhigii, isaga oo ku maqan helitaanka qofkan casiiska ku noqday. Daaqadda gaadhiga ee xigtay xagga Axmed ayaa la furay, waxaana ka soo degtay gabadh, isla jeerkaasna salaantay, kadibna u sheegtay in ay tahay inantii telefoonka lahayd, iyadoo dhoolla caddaynaysa. Axmed waxa uu weydiiyey sida ay ku garatay, waxa aanay ugu jawaabtay inay garatay telefoonka oo gacanta uu ku hayay Axmed laftiisu. Waxa uu yaqiinsaday sawirka telefoonka shaashadiisa saaran iyo inantu in ay isleeyihiin. Intuu qoslay ayuu u dhiibay telefoonkii, isaga oo weydiiyey in magaceedu yahay Nafisa. Iyada oo aan weli u jawaabin ayuu u raaciyey, telefoonkaaga shaashadiisa ayuu ku qoran yahay magacaasi. Nafisa oo ahayd inan furfuran ayaa aad u qosashay, iyadoo afka gacanta saaraysa, waana ay uga mahad celisay sida uu ugu soo celiyey telefoonkeeda. Laakiin Axmed waxa uu u sheegay in ay tahay wax iska caadi ah, uuna ku degdegayo xaggii guriga. Nafisa waxa ay weydiisay telefoon nambarkiisa in uu siiyo inta aanu ka bixin. Nasiib xumadeeda, Axmed waxa uu u sheegay in aanu lahayn telefoon, laakiin ay ka soo wici karto ka saaxiibkii oo ay inta badan wada joogaan. Sheekadu maanta halkaa ha inoo joogto. Tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum.